بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. soo dhawaada dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo adduunyada ka joogtaan. waa Aftaax Boodhari iyo midnimo qaran. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلامتي dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo adduunyada ka joogtaan. waa Aftaax Boodhari oo habeenku haydin wacnaano maalimadu haydin wacnaato ciiday subax u tahay iyo ciiday habeen u tahay iyo ciiday maalin u tahayba waxaan leedahay waqti aad joogtaan ba waqtigu haydin wacnaado soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم. barnaamijka noo sheergaraya caawa xaqiiqada iyo dhabta iyo meesha sartu ka quruntay iyo meesha dhibaatada ummadda Soomaaliyeed meesha laga rakibayo fartuba ay ku godan tahay been farta dareena caawa xaqiiqada jirtana banaanka loo soo saaray eegay Soomaaliyeed horta waad war laadiin waad dhooy laadiin dhibaatada cid idinku wada cid idin rabshaysa iyo cid lugaha idin haysata iyo cid wanaaga iyo walaalnimada iyo dawladnimada iyo qarannimada idin wada ma kala taqaan ummadda Soomaaliyeed uma kala socno cadowgooda iyo qofka rixinka waa eegay laakiin xaqiiqada caawa wax badan ba oo xaqiiqa oo jira ayaan waxa weeye toosh weyn ku ifin doona insha Allah billahi karim. bismillah wakiilada xabashida iyo qaran dumisku waxay ugu badisaa dawlad la'aanta eegay qaran dumiska iyo wakiilada xabashida iyo dagar qabayaashu waxay ugu badisaa dawlad la'aanta laano waxay haystaan wax aan cid weydiisa iyo cid wax ka su'aalaysa iyo cid dabagelaysa iyo fayadhow iyo hay'ado iyo wasaarado iyo dabagal iyo arrimo dakhli iyo mid dibadeed aan cid wax ka weydiinaysa aan jirin iyo shacab bukaan oo gabigeedu wax xanuunsan oo maskaxda laga haysto oo noloshoodii iyo mustaqbalkoodiiba nin iyagoo kala ah oo qabyaalad ay ku taageersan yihiin oo cadow ah uu noloshoodii iyo mustaqbalkoodiiba dhaafiyay caawa wax badan baan kaba hadla dulmaraya xaqiiqada dhabta ana waan idin sheegaya Soomaaliyeed ku soo dhawaada qaran dumis waxaa dhiyaadaa 19 ilaa iyo maanta kuwa ummadda Soomaaliyeed hortaagan ee rajadoodii iyo mustaqbalkoodii iyo garashadoodiiba hortaagan oo dawladii timaadaba labada lugood qabsado oo dawladii timaadaba iftiinka soo baxaba nimanka baqtiinaya sacabka saaraya hatta haday qoraxda iyo dayaxa leegtahay iftiinkaas waxay isku dayaan inay sacabadooda iyo koodharkooda iyo funaanadahooda iyo dharka ay sitaan iyo gooyaashooda inay ku qariyaan ayay jecel yihiin daca hantida dadweynaha ama hantidii qaranka ummadda Soomaaliyeed ha ahaato ama mid gobol ku taala ha ahaato hanti waa hanti waana hanti qaran waana hanti dadweyne iyo iibka magaalada dekada magaalada Boosaaso deeqa dekadeed caawa focuskaygu wuxuu saaran yahay deegaanka Puntland xaqiiqadan idin sheegaya deegaanka Puntland ayaa focuskaygu saaran qaar badan oo bukaan socdo meelaha ka soo niciiraada oo meelaha iga soo caya oo sheeka nica meelaha la wareega oo yiraahdo Boodhari Puntland buu nicibiyay oo yiraahdo Boodhari iyo midnimo qaran Puntland bay ka soo horjeedaa iyo wacadowga Puntland ayagana caawa xaqiiqadan u sheegaya runtaana indhaha ka saaraya waxay yihiin iyo meesha ka yimaadeen iyo waxa ay Puntland ku sheeganayaan oo dhan miiskaan idin soo saaraya Soomaali weyn eegay dekada magaalada Boosaaso waxa dhacay oo mishinkan soo diyaariyay oo shaqadaas waxa weeye aan cid ilaahay mooyaane cid kale oo la ogeyd aan jirin Cabdiwaligaas Saciid Maxamed Raage wasiirka dekadaha iyo arrimaha bad iyo burcabadeed iyo riwaayadaha sheekada laga sheekeeyo xilka ninka wasiirka dekadaha gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi saddexdaa nin horta cid ugu horeysana ma jirto cid uga dambeysana ma jirto baarlamaankana in Cali Xaashi buu wataa Cabdiwaligaas magacii iyo madaxii iyo masabkiina Cabdiwaligaas baa sito waa madaxweynaha Puntland baa la leeyahay hadda waa maamulkan xaaladiisa iyo sida lagu dhisay iyo asbaabta lagu dhisay waxa lagu dhisay waxa loo dhisayba aan caawa halka ka sheegi doono rag badan oo madax ismoodo oo khatar isu haystana aan runta iyo xaqiiqada shaarkaan ka jexjeexi doono Saciid Maxamed Raage waa asal madoorshi waxa loo kaxay meel waliba yaa joogay beelada gobolka bari iyo gaar ahaan magaalada Boosaaso
وصور تاجن قبل كبري يا مجال بوصاصو سعيد محمد راجع يا نكل يا عبد الولي قاص يجي دوميها برلمان صدحتو وصدحتو سعيد محمد راجع وحلوك حي قبل كبري وكسر شيلو يا مجال بوصاصو وكسر شيلو يسوق وزير كده كلها أسباب تصلوك حيصير غير تركي يرير كانوا كسر شيلو أيوه قبابان وسعيد محمد راجع لين قبيلات بين واش الصومالي سعيد محمد راجع مركي هالكلام أركو ليلوي هذا غير بري يرير بوصاصود أيوه قنعان سعيد محمد راجع ما دام وصورك وسنم كصورك كمقضي قدوميها برلمانك سيان ودا دقاقين وأنا وحبا وصمين أيها الله كحيستين على حاش وأنا باكر سيارة أما قلن أما ورقات كوشة عبد الولي قاس شيبكي سوي مالكستو بحيانو قدوميها برلمانك شيء قبطنا وكحيستا إمام الكنكتشرة إيجي وأنا اللي شيبكي سكوشرة وحونا كايلاليا وحلالي وحي وصودعي لها وحوية برلمانك هوي من هذا إلا قدوميه برلمان حميلك سورة تامتمية كستا قدوميه برلمانك وطا وحوال الباء أي برلمانك كانان يوحوال الباء ضيالي كانان يموشي كستو عبد الولي قاس لك كانوا إساقا قاشاك هو ضروري إلا قدوميه برلمانك وطا هل كان رير باسكا داوني رير سناك باسكا داوني وحروي قدوميه هيجي قدوميه برلمانك بالا صعدو عيد شو غريسا مجرد انت كان عبد الولي قاس بياركانو عبد الولي قاس بيكون سفين وفلسفة أي كسر شقية إن من كان ظالمين تا يردق القضياش وكيلاد حبشدو فلسفة شعب الصوماليات تطبيق لواتك سنة كويستين ويورت دكاد بوصاصو ديبوال هيئة اللي هذا شركة اللي هذا دكذا هي واحد شخص واحد الله يوحي كوشيين يا إني يبسدين يا إني كنتم سنسيين ضدك قارب عسكري جب صدر سنة الله هاي سنة يا شني لا تسنة دكاد بوصل الله سنة وابن عد حقيقي كرتا هذا يراتي مجتو سعيد محمد راجع إن علي حاشي عبد الولي قاس عدو وهو الرشيد عدو وضم بيسا أو وحلوه مجتو غير ولي ما سنم كان كاوتشو أبوكو قناصين غير بوصاصو أما غير بري قبل كابري ودنبا سعيد محمد راجع قناصين وطاوني عبد الولي تكلم عبد الولي قاس فوتاي سنة جدنا عنه وحوتاي إنك اللي يلاضو إن علي حاشي قدوميها برلمانكا غير صول ينامك عبتيا وحوتاي نكرين عملي له نور هير ولي بس سنة مير بيلا سنة يانو هالكاس اسكت على كده هو 4.5 ايجي و 4.5 ونور البرهير كيسو إلى سنة يالكا مرة دي هبل صعده الله ولي با يعد كستوى قراسنتك waxaan kaloon aad u hambalyeynaya odayaashii magaalada Boosaaso maalinta dhawata ka hadlay oo uu ku jiray Khadar Xaaji Mire oo ahaa duqi magaalada Boos duqi hore ee magaalada Boosaaso xaqiiqa jirta bay ka hadleen nimankaas Khadar Xaaji Mire aad baan kugu hambalyeynaya waxa tahay geesi u danqanaya dadkiisa iyo dalkiisa waar waxba ku soo wareegana wiil dakadan Talyaanigu noo dhisayaan waxay dhowr iyo 20 sano ku ceeshinay hadda dakad dhisaysan DB Wall iyo Abdulwali Gaas iyo ruwaayadahan iyo nimankan wareegayo ordo mareera ka dhisa oo qow ka dhisa oo ceelaaye ka dhisa oo laas qori ka dhisa oo meelaha bilaad dakada oo garacad iyo ordo ka dhisa wiil meelaha bilaad dakada ka dhisa hadda dakad dhisaysan oo xaqiiqdi ka tay laakiin dakadayadan dhowr iyo 20 sano aan waxa weeye كتير يتعب بالله دور لا تكسر سياد بر الله حريصنا لسي وحبيان لقشن بير إرجع ساس وديك وحبيان لقشن أنا ولا وحلاي وحبيان بين لو شيء إن دكتنا أنا ولا رسنت هذا دكتة سيسان أرض عراية كدسة أو قو كدسة أضياشها مجال بوصاصة كعي يدوق مجال بوصاصة خذ الحاج من كترو آد بمثيل وحين موتين جوال كبري يا مجال بوصاصة يا مصير كشعب كرديان كبوتلامبا inay dadka kaliya ee ka danqaday ee ka hadlay inay iyaga yihiin aad baan ugu bogaadinaya waana waajib ay garan waayeen kuwa kale ee Puntland sheegta ee waxa weeye deegaanka Puntland Garowe gaalkacyo iyo qaar baan maqlay aad baan ugu hambalyeynaa dekada la dhisayo iyo ruwaayada iyo sheeko niico meel la jiro dad qafilan oo reernimo ku qafilan laakiin nimanka odayaasha iyo ina Xaaji Mire waxay arkeen oo ka danqadeen dekada Boosaaso iyo dhibaatada lagu wado iyo rafaadka shacabka Soomaaliyeed ee reer Puntland loo wado eegi inoo shargalay barnaamij waxaan doonayaa oo kale inaan ka hadlo aas-aaskii Puntland
والبطلان أس كذي بنكهض يا عو بطلاني محاتهاي بطلاني أياتهاي بطلاني كماتهاي ورنت بطلان ومحي سؤال نقطتين فوق البعض على مد سؤال بصار بطلان ومحي محل لو سميي حقيقة صوب بلابطي يا أساسي وشيك تسمحوها أنه ما دونينو سيدا قليها سوماليلاند أي أمة رهبابية dadka Soomaalinimada uga saaray anagana dad Soomaalinimada nooga saari maayaan Cabdiwali Gaasiyo iyo Saciid Maxamed Raagiye ciidankood oo maalin walba dalkii Soomaaliyeed ma gadanayaan anaguna daawan mayno asaaska Puntland horta waxa asaasay ismadii reer Puntland haday boqor tahay iyo haday suldaan tahay iyo haday garaad tahay iyo haday ugaas tahay iyo haday beeltaajo tahay iyo haday nabadoon tahayba shacabka deegaanka Soomaaliyeed ee Puntland waxa loo asaasay markii la kala yaacay ee Soomaali sucuntay ee xabadu dhan walba loo tuuray ee bari dhexdeeda iyo Boosaaso ka bilaabatay ee dadkii eelka walaalaha islaayeen ayaa li warbixin ku kala badbaadna dadkii odayaasha ah ee saaxiib aqliga ah iyo cuqaash baa isu tagay waxaana la sameeyay wax la yiraahdo war nabadda inuu ku siilaashane nidaam baa la sameeyay walaa Cabdullaahi Yuusuf baan joogin walaa Maxamed Abshir baan joogin walaa SSDF baan joogin walaa cid kale aan joogin ma isku soo wada duub odayaal Soomaaliyeed baa arrintan ka dambeeyay tuugadii iyo dadka dhacay iyo xabadii iyo wixii socday markii dadkii maalin walba laba reer islaayeen wadankii tuuga qabsatay barqada Boosaaso la isku dhaco Garowe la isku dhaco gaalka ay la isku dhacay oo qardho ilaa iyo Boosaaso 82 control baa la dhigay isbaaro 82 isbaara la dhigay oo reer waliba wuxuu dhigtay isbaar dadna waa la fikiray odayaasha isbaaradii bay qaadeen go'aan waxa lagu gaaray in bal odayaashu talada sii haya sidaas ku bilaabtay guriga lagu asaasay barigi dambe 97 98 wuxuu ahaa guriga hadda ka dowdheeyay Yuusuf Abshir Cadami iyo Abshir Muuse wada lahaay waa laba nin oo reer Boosaaso caanka waa guriga hadda ka ku yaala foornadu ka furaajtay Yuusuf Abshir Cadami oo ay wada lahaayeen Yuusuf Abshir Cadami iyo ninka la yiraahdo Abshir Muuse halkaasaan mari jirnaa oo ciyaar oo askartii odayaasha siigan iyo buuqaas waxa waan arkiisno intaan meesha istaagno saawagna la jira waxa wareer maxaa doonaysa oo aanu ka carari jirin sidaas horta Puntland asaaskeedu waxa ragii asaasay waxa kamid ah oo YouTube-ka ka heleysaan Barkad Cali Saalax Allahu naxariistay oo ahaan jiray la taliyihii Cabdullaahi Yuusuf arrimaha amniga iyo talada iyo la taliyaha oo ahaan jiray Barkad Cali Saalax waan Allahu naxariistay YouTube-ka ka heleysaan soo ka waramaya Puntland wixii loo sameeyay asaaskeedu wuxuu ahaa eegi sheekadan beerka loo rogay ee la qabiileeyay ee waxa weeye shaarka kala loo yeelay ee calaamada loo sameystay ee ummadda Soomaaliyeed lagu bajinayo ee Soomaaliyeed lagu kala goynaya war asaaskeedu wuxuu ahaa horta in nabadda deegaanada dadka reer Puntland ee isku reerka ee isku jufida inay ku kala badbaadaan bariga damana Cabdullaahi Yuusuf Allahu naxariistay baa la doortay Cabdullaahi Yuusuf wuxuu ahaa odayaasha kamid oo wixii odayaashu u yeedhiyaan buu qaadan jiray horta Puntland asaasay ku timi wuxuu yiri laaca aragtay laaga moogtahay laaca aragtay laaga moogtahay wiilashan iska soo habdhamaya aad moodid ida tooreynaya ee meel walba Puntland dawladda Puntland dekadda Puntland dekad baan heshiis baan u galayna ee dawladda Soomaaliya ka dhaqaaqi lahayd ee maalin walba heshiiska nicda la soo galay Imaaraadka iyo Sacuudiga ee kuwan cawaatay bila aqliga ee iyaguna shacabka Soomaaliyeed ee galmudug iyo reer Baydhabo haystay tuugada maalin walba qishka tusayay meesha cidlada afarta ugu fiiqaya ee shacabka Soomaaliyeed u geynaya ee Cabdiwali Gaasiyo ka yiri ee Saciid Maxamed Raagiye laba ka yahay oo ninka la yiraahdo Cali Xaashi saddex ka yahay oo ina camay afar ka yahay oo ay doonayaan ummadda Soomaaliyeed ma jara habaabiya wararta Puntland la idin sheegay Soomaaliyeed horta saasay ku timi anagu hadaan reer Puntland war waxaan ku sugaynay nabad Soomaaliyeed Soomaali maalinta yarka xamar degto ee xabadu joogsanto ee nimanka isku leynayay Caydiid iyo Cali Mahdi iyo nimanka isbaxsanay dhinacana waqooyiga la isbaxsanay war baashan ha degto baan horta anagu uslayn baa horta baashan loo sameeyay odayaasha ismada ay sheegayaan ka dambeeyay bariga damana Cabdullaahi Yuusuf baa yimi oo loo dhiibay dagaalada iyo buuqi markay bateen ninka askariga baa qabsaday meesha Allahu naxariistay isaguna wixii odayaashaas faraan buu yeeli jiray عدا إن عبد حاشبة كحجي عدا كحجي فرولة عبدولي قاس مالين بهرت هير بيسومرس لكن أنا ما خلدي كرو نومنا الشيء كرتان تذكينا شليمي وقارن كهل دورو أنا بحيل قحوتي بطلان ترك اسمودي
bukaan socodka puntlanderka ismooday ayaan iyagana caawa halka runta iyo xaqiiqada u marnay balse intaanan u gudbin war puntland aad maqlaysaan ama laydiin sheegay horta taasay nabadaasaana lagu sugay soomaali maalintay dowlad hesho iftiiyana soo baxaana in dadka dhinac laga raaco ballanku ahaa federalism 4.5 sheekadan la yidhaahdo qabiil ha laysu raaco waa wax nimankan dhagarqabayaashee daalimiinta ay wateen wey wax shacabka reer puntland raalli ka ahaayeenna maaha reer puntlandna ma doonayn 4.5 mana doonayaan federalism war anaa dee reer puntland aniga iyaga puntland darsan markaad tagtid sacuudiga maka markaad tagtid haddaad ninka maka jooga aad taadunriyow macarabaad xagaad ka timi uu ku duugyaado ahluma kaana dee ninkaa carabnimadiisu shaki kaa geli mayso war anigu waxaan ahay reer boosaasood ninku hadduu ku yihahdo waxaan ahay ahlu boosaaso cid ka puntland darsani horta ma jirto shakina kumaba jiraba laakiin waxaan la yaabanahay bukaan socodka ismooday puntlanderkan caawa halka raba inaan waxu maray qaar jowhar ka yimi oo ka soo qaxay 1991 iyo qaar marka dooni ka soo raacay oo halkaa intay soo mareen badda casoo dhan soo jiiray badda hindiya soo jiiro halkaa soo marayo dekada boosaasiyo mareero ka soo xidhiyo qow iyagoo doonyo lagu sido oo aanu garanayno ismadii barigaa noolaalaha naxariistay naadi jireen oo dhihi jireen dadkaa reerka ayaa la degaya war reerka ayaa meelgeynaya war reerka ayaa hoynaya la oran jiray iyo kuwii jidka habaar waalid maray ee nairobi intay halka ka galeen maraykanku qaaday fuuristaanka maarsooti oo ahaa iyo maraykanka ku cuna iyo qaar xamar ka soo qaxay iyo kismaayo siday marba meel ugu soo jabayeen iyagoo indhatareeyo lagu sido macal rimoor laamiga boosaaso iyo iskeyska boosaasood ee nadka la keeni jiray dhihi jiray dadka walaalihiina wax siiya ayaa aniga maanta waxay doonayaan inay puntland iiga sheekeeyaan iyo boosaaso oo waxay meelaha ka soo yidhahdaan puntland buu border puntland buu cadow ku yahay puntland buu nacab yahay nacayb puntlandna baa ku jira war aniga iyaga puntland darsan anigu boosaasaan ka imiye waktigaad boosaaso imanaysay baan anigu joogay ee indhatareega lagu waday adigoo indhataree lagu wado bariis cari kari bariiska loola jeedo qaxootiyada la siin jiray adoo dhinaca uu kugu xidhan yahay baanu gawaarida lagaa soo dejin jiray guri baanu magaalada bartankeeda ku lahayna boosaaso iskoyska waanuga gurno waana laga raro laascaanood baanu gurnay oo waxagaa baxnay gurigaygoo dhan waxaan uga baxnay dad qaxootiyo koonfur ka yimi oo koonfur ka soo qaxay fuuristaankaad maraykanka ku cuntaan iyo yurubta gurigaygaad ku cuni jirteen kaamamka marka layska dhiibo kaamamka yurubta waa idinka arkiyo maraykanka iyo meelahan qofka waa la transfera war guryahayagaa lalaga transferi jiray dadkan aniga la murmaya aniga maanta oranaya puntland baan ahay yaa khareer puntland ahay puntlandna cadow ku tahay gurigayagaa laga transferi jiray inta aroortii waraaq lala kalaho odayaashu bay laga transferi jiray hebel gaarigaa fuul markaasaa gawaari yaroo 4.5 lo oran jiray oo xaajiyadahayo laba shir lay ahaa iyo iskarogooyin baa lagu guri jiray hotel gacayte iyo beertii xaaji ilma askar beertooda iyo beertii waa siyaasiin meesha boqolka buush loo yaqaan boqolka buush meesha loo yaqaan waxay ahaan jirta beer ilma askar niman yidhahdo baa iska lahaa beerta ku xigtana waa siyaasiin baa lahaa beerta ku xigtana yuusuf abshir baa lahaa ilma ibraahim baa lahaa ilma yuusuf ibraahim baa lahaa beertaasaa la geyn jiray oo halkaasaa teendooyin looga dhis bal kuwii iyagoo qaxa boosaasay igu yimi aniga oo waxa weeye bariiskaanu ka daadnay cari kariga halkaa fuuristaanku lagu sii jiray ee beerta ilma askar deganaa ayaa maanta aniga waxay leeyihiin puntlandnimadii iga sheeganay waxay leeyihiin puntlander ma tihid puntland baad cadow ku tahay war puntlandta laydiin sheegayo waxay ku bilaabatayna nabadaasay ahayd odayaashaasina sidaasay u dhiseen ciyaalkiina 2000 dhashay iyo 97 aabbayaashiin iyo hooyooyinkiin bal weydiiye waxay boosaaso iyo puntland iyo ku soo galeen iyaga weydiiye wax taaxaaqda qaaran weligood puntland arag oo meelay jirtaan arag oo garowa arag oo gaalkacyo arag oo boosaaso arag oo ayn arag oo qardho arag oo yurubta iyo maraykanka qaxooti ku ah baa waxay ku oranayaan puntland haddaanu nahay soomaali waa ka go-ayna reer puntland haddaan nahay federalism baan rabnaa warada reer puntland kee tahay dee guryahoodii iyo xamartii ay ka yimaadeen iyo kismaayadii ay ka soo qaxeen ayay necab yihiin qaar jowhar ku dhashiyo markiiyo jowhar la maqashin karin
warninka meeshuu ku dhashay ee ku soo cayaaray iyo beeruhu cambaha iyo muuska ka cuni jiray inkiraya ma boosaasiya garow iyo gaalkacyo wax u qabanaya guriyihii aad ka timi iyo kismaayadii aad ka soo qaxday iyo xamartii aad ka soo qaxday ayaad inkirsan tahay ood leedahay cadow baa ku nool oo yuhuud baa ku nool ma boosaaso iyo garowe iyo gaalkacyaad asxaan u samaynaysa garowe iyo gaalkacyo boosaaso miyaad asxaan u samaynaysa waa adigan yurubta iyo meel walba la tagan waxay soo magacaayeen cabdiweli gaas waa soo wacay safiirka waxaan ahay puntland ninka border yidhaahdo waa cadowga puntland war aniga cidiga puntland darsan iyo cid puntland wanaageeda iga jecel iyo shacabka soo dhawow saaxiibka cabdisalaan gentleman bayin iyo shacabka reer puntland wanaagga aan anigu la jeclahay iyo meeshaan anigu la doonayo iyo soomaalinimada ku jirta war xitaa dadkan puntland markay berigii ha noolaatadii soomaaliya markay xamar iyo kismaayoydu ku yimaadaan waxaad oran jirteen bowa beri laga rasiyo baris caana leh iyagoo idinka ilbaxsano cumaan iyo jeynayo u dhoofo oo waxa weye xariirta kasoo iibsaday iyo magaranaysaay meeshii la oran jiray subeeciyadda ayaad dacaayidayn jirteen ood maagi jirteen maalintaad boosaaso iyo garowe gaalkacyo usoo qaxdeenna annagii baad waxaad nooga sheekaynaysaan dhinaca kale intaad 36 degree dhinaca kale intaad u rogta baad leediin puntland haddaanu nahay waxaanu doonaynaa inaanu soomaaliya wax iska niraano farmaajo ha dhaco khayre ha dhaco xamar waxa weeye ma doonayno war waxaas waa hees waana ruwaay soomaalina kala tegi mayso ninka doonaya dekada boos wax yar baan ku tahay ninka doonaya dekada boosaso inuu iibsado dekada soomaali weyn oo dhan baa iskale annaga anale u soo jeednaa dhalinyarta soomaaliyeed oo dhan baa iskale ina maxamed raage iyo ninkan ina xaashi iyo cabdiweli gaas male dadka reer puntlandna dad caamaa maaha shacabka reer puntland war waan jeclahay waa dadkaygii waa hooyaday iyo aabbaha iyo adeerka iyo abtigay cid iiga sokaysa iyo cid wanaagooda iga jecel puntland ma jirto anaa ku dhashay intaan ku leekaado wax ku soo bartay daayeer meehi anu daayeerka weelka wax ku cuno ku xaara laakiin adoo xamar ka soo qaxay iyo kismaayo haddaad doonto adigoo sujuuyo nairobi ku dhashay iyo adoo maraykan qaxooti ku afuristaan ku cuniya waxaad doonaysaa anoo dhaladoo boosaaso iyo garow iyo gaalkacyo iyo asal puntlander ah oo wanaagga puntland ka sheekani inaad aniga iga sheegatay puntland oo taa cadowga puntland bad qabyaalad yaroo niica baa kuu jirto bukaan socda oo aan meel la gaarsiisnay وانا واحد صومالي هرمر ويلن ويدي واتا وقبيالات يني قفل عابدو انا قفنا ما عابدو انا بوساساوي بوساس الديقان كيمي ابو فريد من الدون يضلكي يضدكي كاس عيد محمد راقي الله يوا توب واين ادركي نيعلو بانا نيعو ما بهنيه بكان سعود كغمدي هي دير قبياش عبدولي قاس كاغا قال كايا كسو نيعلو لي عبدولي قاس مياد نغا خيغتا عبدولي قاس habeen baa tirsataa teeda kale waa madaxweynu sheegtay maxaa ka galay meel noloshaysa all bukaan socod down lafahaagaan u dagaalamayna iyo mustaqbalkaaga iyo nadal magaalada gaalka ayaa ku kala go'aano in abtigaayo baraxle joogaan u tagi karin xayawaan iyo xun all bukaan socod dhan waxaan leeyahay waradeer heesiyaal idinku wala calankanna wallahi waa ruwaayo waxba kama jiraan filinkanna hadda waxaan ba maqlayba سفير لو دورنا يا بسين يا عبد الولي قاسو سفير بسين يو دوري إثيوبيا رونو سفير جيستو ما دولة بونانو وارف مكوفش الميل لبض كوني لحية تمكي سو كوسو دو صح أطبعنا دي سلامة يا عاوة أبوان كان تردي بانو سوق لي وحفر بدن بحسوسية ألا يعيسك دموان سلامة يا برشدة صوماليات هورت مركة كوبات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إنوشر قريه ولا ليال بكان سعود ييلكي قبيلة دستو ييلكي ني عودن ييلكي وارتمر كوبات صومالية وحن ذي الشيء يا عدوجين أم حارم الجوري عدوج الصومالية وحويا مامل قبل يتضع أي كو كتاي مامل كالصوماليان سكوما عابه فايرس نمبر 1 وحكو سوحيجا كبوجلان وحكو سيحيجا دمان مامل قبل يتضع أوكي waxaan rabaa balcaaw aniguna inaan halkan kuwa niiclayaala cabdisalaan gentleman weeyaan magacaygu burcaan ku dhashay xaafadda la yidhaahdo October barniyow inay dunia akhru samaan tahay waxaanu saysanaa 24 saacadood mid xarshin ku dhashay oo xarshin ku maqnaa iyo mid ku maqnaa gowlaale iyo beledhiig iyo haye iyo waxaan ku iri kuwa hargeysa waqooyigeeda ka yimi iyo gabiilay oo aan oran jiray ahuna iyo buji baan isku haysanaa Soomaaliland Somaliland tran maqasheen burca lagaga dhawaaq adeerray baan ku dhawaaq gurigii lagaga dhawaaqay ilaa hadda uu dhisay eedeed baan burca ka qaxa
waxaan u qaxay meesha laada ramaso dagaalku wuxuu igu dhacay burco markuu igu dhacay ciidankii soo galay meesha la yidhaahdo airportka adeerkay baa watay jaamac dhiif nin reer daahiro habar jeclaa baa watay yaa xayawaan mid halkaasaa niclaa sore somaliland baa cayda somaliland baa wax ka sheegta war somaliland kii ku dhawaaqay baan ee waxaan kuu keenayba yaa huuno mid yaroo meelaha adhiga wax ku raaci jiray ayaa maalmaha intu meelaha soo fadhiistaaba marba islaan yaroo malayacniya iyo mid niic oo adeerkiisan fuliga ayaa taageero la yidhaahdo muuse shaani dagaalkeebuu ka qayb galay dagaalkeebuu watay waanu garanaynaa kii hargeysana dhegaweyne baa watay burca iyo togdherna waxa watay ina mira iyo maxamed kaahinna waa adeerka ina mirana waa abtigay maadaa somaliland iga sheegan kara maadigaa somaliland leh xaggaad somaliland aad ka soo gashay burcaan lagaga dhawaaqo waanu garanaynaa 1991kii halkii lagaga dhawaaqay ee lagu khasbeeyey cabdiraxmaan tuur ilaaha u naxariistee somalilandna waxay ku timi markii dowladdii maxamed siyaad barre meesha ka baxday ee dowladdii meesha laga tuuray ayay dadku idhahdeen aynu nabad samaysanno waxaa loo yeedhay odayaashii deegaanka waqooyiga may ahayn dowlad la goosanaya iyo dowladnimo iyo wax noocaasa waxaa lagu sugayay dowlad soomaaliyeed iyo nabadgelya ayaa laga baadhayay markaa in la yidhaahdo maanta ciyaal 2000 dhashay iyo oo aan qaxin oo 2094kii dhashay in lagu shubo oo faysal cali waraabe hortukumu ahaa meanu ahayn kii ka shaqaynayay dowladda hoose ee muqdisho kan maanta aad ciyaarsiinaysaane cabdiraxmaan ciro miyaanu ahayn safiirkii raashi u fadhiyey soomaaliya ma isagaa qaxayba ninkan aad leedan muuse mujaahida horta mujaahidadu waa dee mujaahidkii baabad ku ciyaaraysaana waa mujaahidkii waa raggii asxaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ka barbar dagaalamayey muuse yaa soo saaray yaana baray muuse miyaanu ahayn corneyl askar iyo dowladdii maxamed siyaad barre wax bartay miyaanu ahayn miyaanu maxamed siyaad barre ruushka u dirin miyaanu maraykan u dirin dee dad freesha ha yimaadaan sidee baa kii aniga maanta igu idhaahdaa dowlad cadowgaagu waa soomaaliya dowladda soomaaliyaana laysay dowladda soomaaliya wax noo geysatay war soomaaliya waa walaaladay anigaa jecel anigaa burca ka qaxay octoobar baan ka qaxay xaafadda la yidhaahde burco ciidankii airportka gelaya wallaahi waxaan garanayaa markii ay dheedhaan burco annagoo yaryar kii rasaasta nagu soo ridayayna habar jeclu ahaaye airportka burco ka soo ridayey madfaca ka soo ridayay ilaa digaaga iyo riyaha ku leynaya wadooyinka ee annaguna aanu ka qaxaynay isaaq buu ahaa dowladdii siyaad barraad lagu wataa siyaad barraa waxaa sameeyey kii watayna adeerkiibuu ahaa waxaasoo dhan waan iska ilown inan yaroo ku dhashay ama mid reer miyoo lagu qufulayba oo 2000 iyo meelaha intuu burco yimi lagu yidhi somaliland baad tay halkaa naga soo maalin kastaba in telefoon naga soo garaaco somaliland baad necebtay isaaq baad necebtay oo maadigaa somaliland nagale maadigaa naga isaaqaysan annagoo isaaq oo habar jeclaabaan oo nin reer daahiro ayaanu soomaaliya jecelnahay oon soomaalinay siilaanaan naga saari karin muuse bixiyo huunaa baan naga saari karin dadkan gabiilay ka yimi maan ahay dadkaan odhan jirnay huuna ii bujidaan idiin sheegaya dadkaasu markay subaxdii soo toosaan iyagoo indhaa isku haysta baalbu korolahday xabajaa ku dhici jirto mise odhan jireen huuna ii buji qof kale intuu midba qof u tago dadkii nooca ahaaba intay hargeysa noo soo fadhiistaan bay odhanayaan somaliland waa muqadas wax somaliland war annagaa baashan kuu keennay annagaa imkana soomaaliya annagaa soomaalinimada jecel yaa xayawaan masaa saacadduna waxay kaga fadhiisatay samaroon baa sidana ilaan ummad kale iyo soomaali kale may arag muse wuxuu ka odhanayaa soomaaliya waa cadowgeega oo amxaarada adigaa dee qotiya haddaad adigu qoti tahay annagu soomaali baanu nahay amxaaro weligey baanaan walaal noqonayn walaalana manihin soomaaliduna ilaa soo jireen bay dhaqan u lahayd inay islayso geela iyo miiga iyo hawdkaba isku laysa haddana nabad bay noqon jirtay colaadan uurka lagu haystayo fayraskan iyo xanuunkan may lahaan jirin bal maanta daawada youtubeka kuwa madaxda isaga dhigay oo kawada ka yahay ka la yidhaahdo faysal calwaraabe dee isagu faqashta ha faqashtan ciyaalka ku wareeriyo odhanaya faqash ma isaga ma aydheer buu joogay xagguu joogay markaanu qaxayneen ciyaalka ahayne meeshan laga daadihinay ilaanu qaxoontigii ramasa tegayna intaanu burca ka qaxnay xagguu ku maqnaa soo kii dowladda la shaqaynayay kiibaa maanta fayris soomaali ku dhex jiro odhanaya hadal buu maanta bilaabaya isagoo meel ka hadlayo qaar uu leeyahay dee xisbigayay ku soo biireen wuxuu hadalkaba ku bilaabaya oday ciidagalaa baa yidhi isagiibaa ciidagalaa gabyaaladda annaga hanala yaabina iyagaa sameeya muuse bixi baa meel soo fadhiisanaya mise odhanaya reer hebel baa inagu soo biiray maantana reer hebel baa ka baxay ciraa dhegaysanaya ma odhanayaan war naga daaya qabyaalada qaawan waxaad arkaysa iyaga odhanaya bariga burco habar jeclaya reer daahir axmed faarax baa nagu soo biiray qabyaaladda iyo gebigeedaba iyagaaba sameeyaba ta labaad saddexdan in ilmaadeerka aad tartansiinaysaan aad dimuqraadiyadda dadka ugu sheegaysaan
toddoba qabiil baa dega intii la odhan jiray somaliland british protectorate dadkii kala meeyaan maxaa ku dhacay dadkii kale haddii dimuqraadiyad iyo dowlad iyo waxaanaad sheegaysaa inaad ciyaalka 2000 dhashay iyo wax magaratada iyo reer miyiga iyo jaahiliinta aad maskaxda kaga shubteen dadkii kale maxaa ku dhacay 3 nin oo ilmaadeero isku qoys oo isku jifiye baad intaad tartansiiseen baad leedihiin wararkaasaana weligaa la runta la soo fadhiyana runtuna waxaa la yidhi ragga way ka naxisaa waxa ma yeesho adeer aniga qof yaroo meelaha ka soo hadlay iyo muuse biixi iyo waxaan soomaalinimaduna waa muqadas soomaalinimadaa la isugu imanaya fayruska soomaalina waxa weeyaan waa maamul goboleedada inanka isku dhajinaya isna puntland ee marka cabdiweligaas wax laga sheego waad lunsantahay kan le somalilandowna waad lunsan tahay oo waa cadowgu halku kuu soo marayay waxaanu ku soo dhaweynayaa walaalkii cabdifataax oo intaa caawa dee dabcan ilaan anaguba bilaadan baanu nahay dad unbaa halkaa waxay naga soo leeyihin cabdisalaan somaliland buu nacibi qof yaro miyi ka yimi mid qoti ahaa oo aan waxba ku darsan somaliland oo garanayninba anaguna raggii soo taagnaa baanu nahay maalintii wallaahi burco 1991kii markii lagaga dhawaaqayay horta bal isweydiiyo somalilantan xaggee lagaga dhawaaqay yaa ku dhawaaqay yaa keenay yaa ku soo dagaalamay yaa maxaa loo dagaalamay esna maxay u dagaalamaysa umay dagaalamay somaliland baanu goynaynaa waxay ahayd snm somali national movement behed ciyaalow faysal calwaraabiya musabixiyo fulay oo aan haddii soomaali israacdo waxbana noqon karin ayaa kugu qufulay cunsuriyadii iyo xanuune aad baan idin salaameen waxaan kaloo rabaa inaan idin ogeysiiyo bal dhisitaanka puntland markii la dhisayay beelaha isu yimi ee isimadoodu jeegaan garaadka suldaanka beeldaajaha ugaasada waxaa la isugu yimi waxaan in nabadda uun lagu ilaashado qaar ciid iyo galbeed ka yimi baa anigoo in cali firdhiyaa oo reer boos aabbahay baa ku dhashay oo aabbahay aabbihii baa ku dhashay oo asal boosaasana oo puntland meesha laga asaasay ee laga bilaabay boosaasay war hadday boosaaso dunto maanta cid iiga maal badan iyo cid iiga dhibaato badani ma jirto waxaa daar dumaya iyo waxaa hanti burburaysaa ana iga burburaya ehelkaygi hooyaday reerkaygii baa degan maanigaa nabcaan kale oo puntland burburi kara deegaanka puntland iyo maamulkaa yare halkaa lagu dhisay soomaalinimada lagu sugay haddii dhibaata timaado ninka ugu dhibka badan baan noqonaya anu khasaaraha ugu badan anigu soo gaadhay anaa boosaan sadeeqaa anigayan kula hadlayaa boosaan sadeeqaa markaasaa ina yaro ciid ka yimi ama galbeed fuftadii ka yimi ama mudug salki ka yimi intuu yimaado soo garaaco wuxuu leeyahay border iyo puntland baad nacab tahay cadowga puntland baad waryaa aniga iyo adiga iyo cadowga puntland keebaa labadeena cadow puntland ma ninka doonaya dalkan inuu dhismo oo garowa dhisanto oo gaalkacyo dhisanto oo boosaaso dhisanto xitaa laascaanoo daa hadeer ina cambaasho iyo nimankaasi haystaanee calanka somaliland iyo soomaalinimadaba la rabo in laga saaro yaa halkaa geeyey oo eriyay oo halkaa geeyey sow farsamo xumada iyo qabyaalada iyo quranka puntland ka jira ma daraawiishyaa halkaa u saaray oo somaliland afka u geliyey sow nimankan daalimiintaa ee qabyaalada gabigeed waa isku weerka laga qabtay ma iyo faqaka nicda iyo sheekadan habartaa ee marka qoladaa dhubaanta tiwaadalo habar ma jeertaan baynu isla nahay macal warsangeliga macal disha halkaa lasla kaxaysanayo sow qabyaalada ma mase aniga waxaa iga wadanisan ninka ciid iyo reserve area iyo soomaali galbeed ka yimi iyo kuwa kismaayo iyo muqdisho ka soo qaxay ee boosaaso intay yimaadeen halkaa furistanku inta lagu siiyey deedna yurubta iyo maraykanka meelaha soo galay baa aniga maanta intay koor yar iisoo gashtaan iyo nagatin yar safiirka waxa weeye muxuu ahaa guddoomiyaha jaaliyadda puntland qaar stockholm joogaan isla wararnay guddoomiyaha jaaliyadda puntland wararta aniga may garanaysaa anaa wiil boosaasan ka yimi waa soomaaliyada boosaasadan u leeyahay boosaasiyo garowe boosaaso goormaa soomaaliya laga saaray hargeysa goormaa laga saaray bal inaan ciyaalow waalantiin markuu jabuuti xitaa maalintii la calimasaarayay madaxweyne ismaaciil cumar geele maxaa haddii madaxweyne yahay silaayo loo fadhiisin waayo halkii madaxweyneyaashii east africa ka socdayey igaad iyo madaxdii kale calimasaarkii ka soo qayb galay maxaa loo fadhiisin waayo sotii salaadiinta lala fadhiisinayay markanay ku leeyihin dibaddaanu la kulannay hay-adaanu war waajmaanayn la kulmaanee caqliga fura oo maskaxda fura malaba waa laydin falo waa falantiini talabaad ciyaal yaroo kalo iyaguna meelaha ka soo nicleeya baan doonayaa iyo qaar halabuurra isku sheega oo ku meeraalaysta koonfurbaa sidana maalmahan faallooyin ka bixinayoo lahaa farmaajo qalbi dhagax buu dhiibay intaad farmaajo iyo qalbi dhagax ka hadlaysaan waxaad ka hadashaa siinaaye iyo dekadda berbera sidee baa dekadda berbera maxaaru ugu yeeshaa percentage ha iska dhigin soomaali
oo hodhanin soomaali intaad gabayari soo tirisid soomaalinimaa raadinaya soomaalinimadanaad sheegaysid siilaanyaa hortaagan iyo cabdiweligaas farmaajo ma hortaagna soomaalinimo waxaa halkaa dhigaya baabiyey waa siilaanya iyo nooca la midkaa cabdiweligaas iyo xaafkaa halkaa iminka niicda ka soo hayay ee dubay ka soo hayalaha waanu dee iska qaraabanayna waa malooba waanu qaraabanayna oo de cabdiweligaas baa waxaa sameeyey oo sidii ciyaalkii oo kale oo waxaa sameeyey shariif sakiin baa waxaa sameeyey fariin baan halkaa idiin farayaa kuwa ka soo jeeda burca iyo hargeysa ee ku meeraalaysta koonfurta soomaaliya sida noqotay war nebigii maxamed ha calayhi salaatu wasalaam markuu bilaabayey diinta uu bilaabayey ma kuu ka bilaabay reer tolkiibuu ka bilaabay reer cabdimudalib buu ka bilaabay quraysh iska daaya tolkiibuu ka bilaabay kamuu bilaabin shaam muu aadinayo meelaha kale ciyaalka intay muqdisho aadaane wadaniyiinta iska dhiga baan halkaa fariinu maraya gabaygiina waa laydiin qabsanaya miyaad waxaan taageersantihiin soomaaliya neela amxaareynayo halkaa ka hadla oo ka hadla badheedha oo ilaan aakhira laydin dirma waxay ku odhanayaan cabdifataaxow hooyaday baa joogta war hooyaday hargeysay joogtaa calaamadahay joogtaa hotel star dabadiisay deganta sheekh usmaan weydiiya halkaa iyo walaalada iyo oo kuwa halkaa jooga marka anigu macirkaan ka soo dhacay mana ogoli waanan diiday waanay soconaysaayo waa been iyo koox maafiya oo meel isku urursatay oo soomaalinimada la dagaalamaya oo adiga kula dagaalamaya oo mustaqbalka la dagaalamaya oo amxaaro u shaqeeya qarnigii 21 2017 baa amxaar gumaysta amxaar midow baynu gumaysanaya midowga ayaa gacanta kuu geliyey siilaanyaa kuu geliyey cabdiweligaas baa kuu geliyey kaa maafiyada maanta dhagarqabahaayana waa sharaxanahaye saddexdan ilmaadeerkaa baa kuu geliyey amxaarada u kala hor carare halkaa adisaba looga yaro amxaar baa ku gumaysanaya adiguna qaxoontibaad yaa xayawaan intuu qaxoonti meelahan dee faransiiska wallaahi qaar faransiiskaa liitaba kula socda miskuna cabdisalaanow new somalilan baa lagu itixaam oo adigu miyibaabad ka timi maxaa somalilan kaa galay adeer talabaad ina yaroo ka yimi xarshin iyo burca iyo hargeyse iyo hargeysana waxaa leey dad wanaagsan iyo dad xunbo way ku wada noolyiin ree hargeysow warne adeeraynu kala xishoonno ina yaroo hargeysa iyo meelaha ka yimi iyo gabiila iyo waqooyiga weliba hargeysa inuu meelaha ka soo hadlo waa dunia akhrisaba inuu somalilan uu difaaco idhaahdo somalilan baa sidana war wuxuun baan kuu keeni jiree waxaan kuu keena aqbalo qaado ha ka hadlin adigu somalilantina waxa noo baanay waxaa kaloo intaa ku daraya war shacabka deegaanka puntland ku nool wallaahi waa dad xalaala baatiin oo soomaalinimada jecel oo wanaagga jecel oo qarannimada jecel laakiin haraggiinni baa la huweyn cabdiweligaas iyo weekayaashiisu magiciinni iyo masabkiinni iyo sharaftiinni bay huwan yihiin kuwaasayna ku qaraabtaan oo adduunka la tagaaloyaa 4.5 baan rabnaa federaalism bal ilaahay baan idinku dhaashay reer puntland cabdiweligaas berigii uu yidhi 4.5 dooni mayno muqdisho looga yeeray duway bay isku arkeen isagii cumar cabdirashiid 5 milyan oo lacagaa la siiyey ingiriiska iyo maraykanku tagay wuxuu yidhi raganimo waxaa iga hadhay no inaan idhaahdo maya iyo wax noocaas oo dee mahmaha yaroo jilicsan waa loo sacabinaya ilaa odayaal waaweyn oo garh waaweyn oo ceraystay baa uu durbaankii sacabka u tumiyey markuu garawa ku noqdayna 4.5 kii buu qaatay war waxa weeye baktiga ma cunay fiidkiisaanu cabnaa wey shacabka puntland marka waxaa leeyahay waa dad soomaalinimada jecel oo wanaagga jecel oo qarannimada jecel baatiin oo jiritaanka ummadda soomaaliyeed jecel baatiin laakiin wallaahi innagana af buu nagula hadlaya nimankana waa laba qadaadle waa laba wajiile laba jahlaa la yidhahdaa iga ralew dabcan dadka ka soo jeeda gobolada waqooyi laba gobol oo afduubeen baa 40% gobolka togdheer iyo gobolka waqooyi galbeed ayaa 40% weliba ciyaal u badan iyo wax magarato ayaa aaminsan waxaana dadku waa dad fiican way garanayaan inay Soomaali wada raacayso gobolkaas oo dadka degan waa dad wanaagsan awdal dadka degan waa dad wanaagsan togdheer weliba dadka degan waa dad fiican oo goba oo Soomaalinimada garanay laakiin ma fiya afduubtay waa dadka waa lama jiraabiyo waxa loo samaystay ciidamada maxaaraysan oo aarayo lagu sheego iyo been baa lagu qabsaday Soomaalinimo ay sugayeen dhibaatadu waxa weeyaan hadaba Soomaaliya wayna wada haysataa dawladnimadeena aynu barbar istaagno haddii dawladda oo nabad inoo noqoto muqdisho oo dawladdeenu inoo xasisho nin maafiya iyo dabadhilif iyo dulli Soomaali ma haysan karo Soomaali way isu tegaysaa way israacaysaa teeda kala firirkeena iyo kala jeehaanteena wallaahi shar iyagu saasay ugu badisaa oo dawlad la'aanta ugu badisaa shacabka reer Garowe iyo kuwa reer Boosaaso iyo kuwa reer Gaalkacyood meelaha niicda iga soo guree boodhar iyo shayaan boodhar
حقيقة يرونتا إن شيء كاجا بكان صعد كاجا جروا كيمي يكاج بوساس كيمي يكاجال كعيا كيمي يعني مالها يقصني عرني ورانو هو يدا يا أباها يا وراها مصير كذا كترني مصير كشرفتين يا جريه هنا كترني سومالين إسرائيل وحوي جروا يقال كعيا يا بوساس وده متلال يا بنداي ديارسها ودولا مدوري adiguna waxaad doonaysaa bukaan socdo qabyaalad yar baa lagu taxaamayo inaad qaxootiga ahaatid oo sida halka ugu jirtid oo marba adigoo Soomaali break bal waxa ay sameeyeen inay sheegay Soomaalinimadii baynu sidana haddana Cabdiwali Gaas iyo weekayaashiisa ayaa inaga nagu qaraabanay oo sharafteena ku qaraabanay Soomaalidii dacar nooga dhigay shacabka reer Puntland wallahi Soomaalida kale ma jecla maxaa lagu nacay ma waxay la tahay shacabka reer Garoweynay Soomaalinimada nacibiin ma nabca wallahi oo kuwa boosaasi ma nabca oo kuwa deegaan kasto Puntland kamidi oo maamulka kamidi odayaashu dhisaan ee dhaxalka looga tagay yiri isku si ilaalinta nabad helisa shacabkaas wallahi Soomaalinimada ma nabca laakiin yaa adduunkeena nacsiinaya way reer Puntland adduunka inaga yaana nacsi koonfuriyana nacsi waqooyina nacsiinaya yaa harag shabeel inoo saarayo orgaba iyo dad qal naga dhigayo qorsmaris waa Cabdiwali Gaas iyo weekayaashiis maamul xumada meesha ka jirta way dadkii ehelka ahaa ee deegaanka Puntland wada deganaa xaqiiqadan idin sheegay reer Puntland eegay yaa kala dilay reer Puntland deegaanka Puntland yaa dadkii ku noolaa cuqdada u kala geliyay yaa yiri jifi isu qabsada dad walaalo halka wada degan baahiyaa isku diray miyaanu siyaasi xume inaga reer walba siyaasi xume leeyahay reer waliba nin duuni qaataa leeyahay reer waliba caada qaatay leeyahay bal mid garowa jooga iyo mid gaalka ay jooga mid booso jooga wasiir sheeganaya oo maalkoodi iyo dhiigoodi iyo cashuurtooda cunay baa mid qaxooti Sweden ku ah iyo mid Mareykanka qaxooti ku ah iyo mid Australia qaxooti ku ah aniga igala doodaya oo xulay border iyo maxaad hebel ka rabtaa Cabdiwali Gaas maxaad ka rabtaa waa in adeerkay maxaad ka rabtaa hebel waa in adeerkay wareed oo maxaan hayo anu xagaan manikan markuu joogay Mareykanka hadii maan qabsado wax ka sheego maanta waxaan uga sheegaya sharafteedii buu ku tumanaya dadkaygu buu isku diraya reer Garowe iyo Boosaasu isnacsiinaya Cabdiwali Gaas gaalka ay Garowe isnacsiinaya war hablaha qandala iyo ayl ku umul raacaya ee bilaa dhaqtarka ee dhiig joojinta aan haysan ciyaalkan xaaba ku dhimanaya aanu saan u qeynay bridge loo sameeyay markii dambe ay jaanka yar kaga talaabaan taa maxaad uga hadli weyday inta aniga nicda ila soo dooranaysan iyo sheekada xun ee jilicsanay bukaan socodnimada hablahan saxiimada laga soo qaadiyo qandala laamiga loo dhisi waayay togan durdur ee maalin walba shacabka reer Puntland iyo hooyooyinka reer Puntland caruurtu ku rajoobayso ku agoomayso maxaad uga hadli weydana Cabdiwali Gaas maalin isagoo bal damiir xumidiisa isagoo maraya bay dad la tagtay markaasuu saacad taagnaa meesha uu sugay waana 20 mitir dhaqaalaha Puntland ka soo baxanaano sanadku waa 100 milyan waranu daalinkaasaan idinka cilinayaade tuugoo dhan baan idinka cilinayaade aniga ay u soo afkooyne ordo nimankan daalimiinta ay qabyaaladaydu ku haysta idigoo qaxootiga oo waxa weeye 4,000 oo karo iyo 3,000 oo karo suga oo caruurtii gaagis noqotay oo Mareykanka iyo meel walba sharaftii ku dhimatay Puntland baan ahay fan aan meel la jirin iyo dhaqdhaq halka la soo istaagine dib u noqdo la xisaabtamo daalimiintan iyo tuugadan kuwa la xisaabtamo Soomaali baynu nahay waynu ognahay reer Puntland ee Soomaalinimada jecel yihiin calanka inuu ka babanayo laakiin fiihe calankan sokayaa samaystay miyaan farole samaysan calankan miyaan siyaasiyiinta Cabdiwali Gaas iyo la midaana samayn maxaa loo sameeyay soo in Soomaali lagu bajiyo maaha waa qori dab loo Soomaali lagu bajinayo xaqiiqadan idin sheegay Boosaas iyo Garowe iyo gaalka ay midna abaal uma hayo Cabdiwali Gaas Siciid Maxamed Raage Boosaas abaal uma hayo in caashiga kan abaal uma hayo dhahar iyo meeshu ka yimi iyo baran kulligood waa wada daalimin aniguna daalimiinta Ilaahay baan ugu ballan galay inaan sheego wuxuu yiri xigtada wuxuu yiri dhameys maaha adduun waana shay dhigane xigtada la isku dhuftiyo gacalka ku dhow dhaxalkiisa ka leediyo dhalad walaalkaaya mindiyaha la isugu dhiibiyo hoota dhagarlay war mindiyo isku kidhiibaya iyo hoota dhagarlay ka leedahay in adeerkay weeye walaalkaabu kugu diraya shacabki reer Puntland iyo deegaanka reer Puntland buu kala gooyay markaasana Cabdiwali Gaas qabyaalad yar oo niica iyo ado reserve ka yimi galbeed iyo ciid baad doonaysaa aniga inaad Puntland iga sheegto tahay Puntland darbaanahay anaa reer Puntland cadowbaad Boosaasaanu ka nimi yaa jaahid war waxay haysteen iyo meesha irsuq way yaale Puntland ma ka nooshahay ma irsi kala Puntland yaalba dekada iyo controlka Soomaa
daarahan anagu ka nimeen lagu dhisayay Puntland aanu taagnayn ayaa doonaysa adoo Kismaayo ka soo qaxay oo xamar ka yimid aniga Puntland iga sheegay warana ka Puntland soo ka Puntland jecel yaa miskiin qaxooti baa tahay bukaan socda Puntland darnimaduna ma aha wax la iska yeelay waxa Puntland dara ninkii dalkan iyo dadkan u naxaya waana aniga ninkan ka naxaya garowe ee gaalkacyo ka naxaya ee boosaaso ka naxaya eel ka naxaya oree yaa miskiin هلا نقوله ورجينا شكلنا نعدا يوحنا شنو سومالي ما دنا وجريسه waxa Soomaali xalaala ninka amxaarka diidan ninka qotiga ay xarshin ka yimi ee wixii yaraan nabada u samaysanayaan Soomaalinimada ku sugaynay dawladnimada u qaatay lagu yiri Somaliland first Somaliland muqaddas war kitaabka horta muqaddasa kan adiga waxa ka sii liita ka intuu soo ristaago koranaya hadaan reer helanahay xisbi hebel baan u codaynayna bal maxaa loo arki way haday xisbi yihiin oo xisbi yihiin oo nin wax qaban muxuu program u leeyahay way ilan plan iyo program bay xisbiyadu leeyahay oo xidhan caafimaadkan waxa ka qabanaya deegaankan waxa ka qabanaya shaqaantan waxa ka qabanaya tacliintan waxa ka qabanaya halkan uu kula soo istaagay soo koranaya waa markeegi habar jeclay bariga hore noo codaysan oo kulmiyay silaayadu codaysan maantana anagoo habar awalo sacad musaaba meesha marayna kan kale halkan u booday soo garaxaj isbaan iskunay war waxaan leeyahay riwaayadihiin fahme maxaa loo waayay intuu halka istaagay yiraahdo waxaan gobolada Hargeysa iyo Burcaan horumarinaya iyo Boorame inta iyo macal kuwa kale ee dib u dhacay waqooyi amxaarkana ma jecliyo amxaar Soomaali beenu Soomaalinimadeena waynu ducaynaynaayo maxaa nin noocaas loo waayay balinay qabiyaalo tahay maxaa kale loo waayay nin kale oo ku soo biiro toddobadan qabiile meesha degan maxaa hal qabiil ku koobay markaas deebo aniga yiraahdaa nin yaro xarshin ka yimi anigoo Burcaan ka soo jeedo bariga Burcaan ka soo jeedo nin habar jeclaayo ah meeshii laga dhawaaqay kuwii ku dhawaaqay kuwii ku dagaalamayay ay abtiyaashiino habar jecliye habaroon iskaga dhashay inuu niyaro oromada iyo qootida la soo caana dhamay oo xarshinay meelaha ka inuu meelaha la soo fadhiisto yiraahdo wax soo qaade dunia akhrisaban yiraahdo Somaliland baan ahay oo waxyaabo ay haysteen moogto musu kula soo hadlay qornay kaayar Somaliland buu nacibi oo yaa naga Somaliland yaa naga kuwan meesha hayste maadigaas ilaahay naga xigay Salamaangal labaduba waa laba nooc habar jeclaa kuwan maanta meesha ugu sareeyo xitaa dad qabyaalad ku hayso xil iyo waxa ku noqonayso Somalilandnimo iyo waxa Muuse Bixiba madax maray iyo Muuse Shaan iyo adeer wax allaala waxaad arkaysaa ee kule abwaanada see ka dhigayeen mid laab saalax la yiraahdo mid kale oo la yiraahdo weersame mid yaro xanuun oo meelaha qaybtii social media ee Muuse Shaani bahdii social media oo meelaha dumarka caay jiray iyo hablaho maxaa la yiraahdaa Sacuudiga laga tarxilo aragay wax ku raaci jiray waxaad arkaysaa inta ugu edebta daran ee Soomaali cayda ee ugu xayawaansan waa Muuse Bixiye faamigiisa hoos wallahi run baan idin sheegay ma aha goobta isaaqo ma caytanto Soomaalina waxba kama sheegaan dantooday watan waanay dagaalamay markay doonaan way dagaalamaan waxbay diidaan laakiin nooca u caytama teesaan macaal ma garanayno dumarku waa wax qaaliya dumarka oran maayo laakiin se waa ilmo cadaani ciyaal cadaani ayaa meelaha ka soo niicleeyo kuwan xitaa kumanka nagu caydhahda FIFA Somaliland waxyaaba noocaas war waa nooca marka ninka maanta amxaarka hoos tagay anigu saaxiib amxaar hoos geen maayo nin amxaar hoos galaya meeyi umadana waxaan kula dardaarmayaa Soomaaliyeed iyagana waxaan kula dardaarmayaa warnimayaha Soomaalinimadu ma aha silaaya madaxweynaha Muuse Bixiba madaxweynaha Cabdiraxmaan Cirra madaxweynaha waa wax ka qaalisan Soomaalinimadu ma aha qabiil la qaran ma noqdo amxaaru dulow ma aha Soomaali sharaf lagu ma gaadho ya amxaar meesha ku haysta haka baqanina kuina halabuurka meelaha ka soo hadlow Soomaalinimada difaaca umada Soomaaliyeedna waxa leeyahay dawladdiina ilaashada dawladnimada barbar istaaga anaga waxa noo balan madaxweyne kasto koonfur yimaada oo calanka buluugaani kasto waanu taageerina kaasana horumar lagu gaadhay qoqob iyo qabyaaladna horumar lagu gaadhi maayo waxbana ka socon mayso sheekada yar waa malaawaal Puntland reer Puntland waxa leeyahay Soomaal arkaysan imka 40% in wada la miriyay kuwan oo leeyahay Soomaalnimadii laga saaray oo ciyaal yar la oranayo de waa ku inay reemka dhasho kulun baa la oranaya Puntlander waxa Soomaalidu ku leeyahay sida ku yar dreamika ku nool oo kale marka idinku ka taxadira arrimaha ka taxadira aad baan idin salaamay khayr iyo baraka idin rajayna shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogtaan waxaan leeyahay ilaahay idin xafido assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh